adkaynaya ilaahigan xejinaya dhankayga waan adkaynaya wadama taasi inoo dhaxaysa wadama taasi inoo dhaxaysa hayga duman hayga dheeraan darbaan ka maaraya hayga duman hayga dheeraan darbaan ka kulanti wanaagsan dhammaantiinba daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenii dhaqaalaha oo aad nooga barateen inaan idinkaga soo gudbino telefishinka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya habeen walba oo talaada ah barnaamijkeena dhaqaalaha ee caawa waxaanu ku soo qaadanaynaa mashruuca fidinta beeraha oo hoos yimaada wasaaradda beeraha dhankayga waan adkaynaya ilaahigan xejinaya dhankayga waan adkaynaya wadama taasi inoo dhaxaysa wadama taasi inoo dhaxaysa hayga duman hayga dheeraan darbaan ka maaraya hayga duman hayga dheeraan darbaan ka maaraya darbaan ka maaraya mashruuca fidinta beeraha waxaa lagu dhisay sharci lambarkiisu yahay 8 ee soo baxay December sanadkii 1980 wuxuuna ka mid yahay wakaaladaha ama mashaariicda heerkoodu yahay wuxuu yahay mid ka mid ah mashaariicda madaxa bannaan lehna awoodda iyo jiritaanka buuxa ujeedooyinka mashruuca loo abuuray waxay yihiin horumarinta tacabka beeraha tababarka aqoonta iyo farsamooyinka shaqaalaha ka qayb qaadashada himilada kacaanka ee dhinaca dalagyada quudka fidinta aqoonta beeraha iyo tababarka beeralayda dalka tababaridda iyo kor u qaadidda waayo aragnimada shaqaalaha fidinta mashruuca waxaa maalgelintiisa lahaa dowladda Soomaaliyeed bangiga adduunka hay'adda dalka Mareykanka u qaabilsan kaalmada dibadda ee loo yaqaan USAID bangiga horumarinta Afrika ADF sayidada dhaqaalaha Yurub oo loo yaqaan EEC maalgelinta mashruuca wajigiisa labaad oo bilaabatay 28 Agoosto sanadkii 1980 oo ku ekayd 30 bishii Juun sanadkii 1985 ay bangiga adduunka iyo hay'adda Mareykanka u qaabilsan kaalmada dibadda USAID waqtiga maalgelintoodii ku kordhiyeen qiyaastii sanad oo ku beegnayd bisha September sanadka 1986 iyagoo u bogay habsami u socodka howlaha mashruuca fadhi ay yeesheen hay'adaha caalamiga ah ee maalgeliya mashruuca iyo dowladda Soomaaliyeed bartamihii sanadka 1985 waxaa la isku afgartay in maalgelinta mashruuca fidinta beeraha halkeeda laga sii ambaqaado mashruucana uu gudagalo wajigiisa labaad marka laga bilaabo kal dambe ka qaybgalayaasha fadhigaasi waxay aad ugu riyaaqeen sida uu mashruuca fidinta beeraha uga soo baxay xilkiisii marka laga eego ku talagalkii hore ee mashruuca oo ahaa in aqoonta casriga ah loo gudbiyo beeralayda waxaana loogu talagalay in aqoontaasi loo gudbiyo 108,000 oo qoys oo beeralay ah si ay ugu suurto gasho mashruuca in 5 sano ee soo socota wajiga hore uu farsamada cusub ee beerfalashada uu gaarsiiyo 135,000 oo qoys oo beeralay ah iyo 20,000 oo qoys oo ah kuwa qaxooti ah howlaha fidinta mashruuca si habsami ah waxay uga socotaa 9 gobol oo kala ah shabeellada dhexe shabeellada hoose hiiraan waqooyi galbeed togdheer gedo bakool jubbada dhexe iyo jubbada hoose dhammaan
dhammaan gobolladaasi waxay ku socdaan qorshe xilliyeed oo saldhig u ah higsashada ujeeddada mashruuca oo ah in aqoonta farsamada cusub la gaarsiiyo 195,000 oo qoys oo beeraley ah ilaa sanadka 1987. howlaha mashruuca waxaa si dhab ah u fuliya 184 fidiye tuulo, 28 fidiye degmo, 11 aqoon-yahano beereed oo gobollada u kala baahsan, 8 fidiye gobol. fidiyaha tuulada oo adeegsada baaskiil wuxuu u xil saaran yahay in aqoonta beeraha la gaarsiiyo 500 oo qoys oo beeraley ah, isagoo ay taakulaynayaan fidayaasha degmada oo mooto adeegsada iyo fidiyaha gobolka oo isaga iska leh xilka iyo isku dubiridida hawshaasi, isagoo si toos ah ula soo xiriira xarunta fidinta iyo tababarka ee mashruuca. haatan fidiyahan ayaa misaal u ah habka ay u socoto hawsha beerashada lagu gaarsiinayo beeraleyda. ساسانا لو باهن yahay in ma hadda habkii horan ku sheegay oo 75 iyo ahayd iyo 50 oo labada lagu reebay iyo tan hadda hal 75 iyo 25 hal hala abosto isku mid falkiin waa ka abosto baya dhow qodkii ma ka daaway waa ka daaway waa ku shubay hadana waa ku naqa hadda ma أنا وكاسي سعنايا ساسا اسكو أغنى الدلال كذا يونا ديع الموتى إن شاء الله وحلو بها أنا قد داش حاجة وحنا اسكو قرب هذا الفرق هذا كوا يا هلا waxaa xiiso leh bandhig beereedyada laga sameeyo beeraha tusaale xilli kasta iyadoo laga dhex sameeyo beeraha beeraleyda iyadoo qofka beerta leh lagu howlgeliyo inuu wax ka fuliyo hawsha fidiyaha ka hirgelinayo beerta tusaalaha. mashruuca fidinta beeraha wuxuu beeraleyda u qabtaa shirar ku saabsan kor u qaadida tababarka iyo iyadoo beeraleyda loo fidinayo tababarka la xiriira farsamada tacabka beeraha. waxaa intaas weheliya filmo iyo sawirro lagu tusayo beeraleyda kuwaasoo ku saabsan horumarinta beeraha. habkan wuxuu yahay mid waxbarasho casri ah oo leh maqal iyo muuqaal audio visual aids.